magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha Olombikada maamulka Galmudug Rashiid Cabdullaahi Foomka iyo gudoomiye ku-xigeenka Bilow Warsamo Dhoore oo labadaba ah qabiiro dhanka isboortiga ah waxayna door weyn ka soo ciyaareen kooxihii birisamaadka la magac baxay badda iyo horseed labadan qabiir ayaa loo doortay guddiga Olombikada Galmudug munaasabad aad u sareysa ayaa lagu qabtay Easter Restaurant ee ku taala galbeedka magaalada Toronto munaasabadaas waxaa hadalla ka jeediyay macallimiin dhanka isboortiga ah waxaana hadalladoodii ka mid ahaa habeenkan caawa oo isugu timi in aanu ka qayb galno xafladan aad u qurux badan loo soo agaasimay oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa isboortiga gaar ahaan gobolada dalka Bilow Warsamo si aad arkaysaan wuxuu ahaa ciyaaryahan runtii isagoo ciyaar dugsiga sare ee 15 May I think inay ahayd 79kii 80kii meelahaas ahayd أنا وحنا توبرة وحنا أدوكسي سر أبدا مركز أنا لوكل ما in fact Bilow Warsamo يارتو هارون تحرف ديس عادة في عنتها أخلاق ديس يودم ديس يوحد غيب سيجس فهمتي عاديات ونكسن. صرنا قبل كستو وقبل الصومالية وقبل الصومالي اللي هي عنق كستو الصومالي صوبها يعني وعنق الصومالية مركب وإنا كده دالنا annaga horta inaan isqabsanaa ismaamulnaa weli dadkeena Toronto ku nool gacmaha inaan isku dhignaa arkaysaa mar haddii Galmudug ay ciyaaraha Olympiga ka qayb galayso isbedel waaweyn ay ka mid tahay waxyaabaha Soomaaliya laga filayo inay ka dhacaan waa wax qiimo weyn ku fadhiyo waayo labada nin loo xil saaray Galmudug ay u magacaawday oo ah gudoomiyaha muxuu ahaa Olympikada Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo Dr. Foomka u dhalay iyo ah gudoomiyaha iyo muxuu ahaa Bilow Warsamo Dhoore oo caawa halka nala fadhiyo oo gudoomiye ku-xigeenka ah waxa weeyaan inaan maanta aan u muujino sida aan u garab taaganahay barnaamijkaasito ay u diyaarinayaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolkaasito iyo maamulkaas sida uga qayb gal lahaayeen maarata Dar es Salaam Bilow Warsamo Dhoore oo gudoomiye ku-xigeenka Olombikada maamulka Galmudug wuxuu telefishinka u xaqiijiyay inuu ka qayb galayaan ciyaaraha interseri ee ka dhacaya magaalada Dar es Salaam waxayna ku ciyaari doonaan magaca Galmudug ciyaartaas oo dhici doonta 20ka bisha May sanada 2015 waxaana naga go'an inaan si dhaqso ah isbedel uga sameeyno sportska gobolada dhexe waxaan ku tala jirnaa inaan ka qayb galno ciyaaro la yiraahdo interseri oo ka dhaca zone 5 ama gobolada wadamada bariga iyo bartamaha Afrika إن شاء الله waxaan jecelnahay ciyaaraas ka qayb galno bisha May 2015 munaasabadan way ka soo qayb galeen qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada sidoo kale habeenkan caawa munaasabadan waxa soo buux dhaafiyay qaar ka tirsan bahweynta isboortiga Soomaaliyeed oo ay badan yihiin kubadda kolayga iyo kubadda cagtaba mahad carab oo cali telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka Canada